muwaadin platform oo ah madal dhalinyaro ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furtay kulan dhalinyaro oo muddo 2 maalmood socon doona waxaana kulankan ka qayb galaya dhalinyaro kala duwan oo ka kala yimid gobolada dalka Soomaaliya kuwaasi oo ka hadlaya dhibaatooyinka kala duwan ee haysta dhalinyarada doodan muddada 2 maalmood socon doonta ayaana halku dhig looga dhigay safarka geediga iyo sahanka rajada waxaan dhalinyarada ka qayb galaysaa doodaasi ay ku falanqeyn doonaan dhibaatooyinka kala duwan ee haysta dhalinyarada oo ay ka mid tahay shaqo la'aanta iyo sidoo kale dhibaatada tahriibta iyo sidii xal loogu helin lahaa Faarax Abshir agaasimaha xaruntaasi muwaadin platform ayaa ugu horeyn kulankaasi furay marka muwaadin waxaan u aasaasnay duruufaha ku gadaaman muwaadiniinta haysta inaan ka jaahil bixino oo aan iftiimino soo kaleetana awood siino mararka qaarna aan wacyi gelino waxyaabaha la xiriira dawladnimada iyo iyo ummadnimada iyo waajibaadka iyo mas'uuliyaadka iyo xuquuqaadka uu leeyahay qofka muwaadinka Soomaaliyeed inaan siino ayaan u aasaasnay dooda qaran ee aan maanta halkan u fadhino waa dood ku soo aaday xilli xasaasi ah oo ay dhalinyarta Soomaaliyeed safar geeri badan leh oo aad iyo aad u khatar badan leh ay ku galayaan badweynta kala duwan qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee shirkaasi ka qayb galaya ayaa sharaxaad ka bixiya dhibaatooyinka kala duwan ee dhalinyarada Soomaaliyeed haysta qofa wuxuu ku qamaaraa oo miiska soo saara naftiisa tii ugu qiimaha badneed asagu raadinaya wax aan wali la gaarin ma la gaarin ma haysid waa dhalanteed Yurooba tagaysaa hal sano qaxootiga maraysaa dan waxa la yiraahdo guriga helaysaa gaariga helaysaa shaqo helaysaa sawirra soo galaysaa it's a dream European dream laakiin sax ma dan naftaada meesha waa gamble waa qamar caadi ah waa tahriibta marka sida dhalinyarada looga wacyi gelin kara tan koowaad waxa weeye xasiloonida guud iyo hogaaminta dalka oo toosnaata oo xagga amni ha noqoto xag dhaqaale ha noqoto oo qofku la hagaajiyo noloshiisa sida in heshiisiin waxa loo yaqaano musaalaxa wadaniya shaqo abuur madashan dhalinyaro ayaana lagu soo bandhigay doodo ku aadan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada iyo sidii dhibaatooyinkaasi xal loogu helin lahaa gaar ahaan tahriibta iyo sidoo kale dhibaatooyinka la xiriira shaqo la'aanta taasi oo keentay in ay dalka ka cararaan qaybaha kala duwan ee dhalinyarada kuwaasi oo ka mid yihiin waliba dhalinyarada wax baratay su'aasha aniga laga weydiiyay ayaa waxay tahay dadka ganacsatada ah ama dadka hantida haysta ama dadka dawladda xiriirka fiican ka haya ama dadka fursadaha helay iyagu oo ka nasiib badan dadka aan fursadaha helin maxay dalka uga baxaan hadda isku dayo qofku sidoo markay baahidiisu meel buuxsanto baahiyo kala soo baxa hadda midalan akoonkaagu waa maran yahay guriga hooyada aabaha laga yaabaa inaad degan tahay ama guri yar oo adiga baahidaada aad ka bixi kartid jeebkaagu inaad degan tahay baahidaadu waxay leegtahay maalinta intaa ka badan matid laakiin maalinta akoonkaagu ku jiro 100,000 200,000 oo dollar waxa ku galaysa aragti ah investment inaan sameeyo maadooyin kale oo cusub oo aan kalaasida lagu qaadan oo la dhaho nabadoonka ma jaamacad lagu dhigtaa nabadoonkaaga raadi xildhibaankaaga raadi qofkii marka waxaas dhan isku soo aruurayaan wuxuu ka rajo dhigaya xataa shahaadada uu watay wax macna inay u sameynayso wuxuu isweydiinaya dib isku weydiinaya haddaan nabadoon u baahanahay aan ka aqoon badanahay ka waaya aragsanahay ka cilmi badanahay ama xildhibaan soo ku yimi ilaahay xaalkiisa og yahay haddaan u baahanahay waa shahaadada u sitaa kadib furitaankii madashaasi iyo doodihii kala duwanaa ee halkaasi lagu soo bandhigay ayaa qaar ka mid ah dhalinyarada ka qayb gashay kulankaasi waxay ka hadleen aragtidooda ku aadan sida xal loogu helin karo dhibaatooyinka kala duwan ee haysta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay ka mid tahay tahriibta sanadkan wuxuu qabtaa dhalinyarada Soomaaliyeed inuu ahaa sanad musiibo ah maxaa yeelay dhalinyarada aad u tahriibeen dhalinyaro badana waxay ku dhinteen badda saxaraha Algeria sidoo kale qaar Liibiya laga soo badbaadiyay qaarkood magafayaal gacanta u galeen dalku asoo intaan ka sii darnaa haddana dhalinyaradu maanta say u tahriibayaan runtii uma tahriibayaan marka runtii dhalinyarada Soomaaliyeed caqabad weyn ayaa haysata marka waxaa ka go'an dhalinyarada inay wax badan ay ka bedelaan wadankooda si qof walba oo dhalinyarada wadankiisa u maalgashto hadhowdiina uu ugu yeesho muxuu ahaa dhaxalgal uu noqdo marka shirka waxa lagu soo bandhigay waxyaabo badan baanala badan ma jiray su'aalo ma la isweydiiyay reesanada waxa keenaya in dadka dhalinyarada wadankooda ay ka tahriibaan problemkeena marka waxaan dhalinyarada badan waxay soo bandhigeen warbixino buuxda oo looga hortay karo tahriibkan qofka dhalinyartaana dib u ku noqonayso inuu wadankiisa ka tago dal walbana waxa samata bixiyo waa dhalinyaro
hadda meel walba oo dadka ka kaco aan bulshada la kiciyo waxaa ka mid ah dhalinyarta weeyaan horumarkan hadda Soomaaliya la joogana waxaa keenay waa dad dhalinyaro ah oo isku tashteen oo 13 oo SYL la dhaho ee isku tashteen marka dhalinyarta hadda waxaa u maleysaa in ayaga mustaqbalkooda ku ciyaareen sababtoo ah maanta Soomaaliya waxaa 1 iyo 2 iyo 3 ka ah oo tahriibkan maxaan ku yiraahdaa 1 ka ah waxa weeyaan waa siyaasiyiin oo danley ah oo dalka u soo shaqo toontay oo doonaya dhalinyarta maskaxdooda inay ku ciyaaraan Axmed Cabdikariin Maxamed Universal TV Muqdisho